maamulka degmada Dila ee gobolka Awdal xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Soomaaliland iyo duqeyda degmada Dila ee gobolka Awdal ayaa cabasho ka muujiyay wasaaradda caafimaadka oo qorsheynaysa in xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada Dila ay ka wareejiso hay'adda Bisha Cas isla markaasina ay ku wareejiso hay'ad cusub taasi oo hay'adda Bisha Cas iyadoo ay gacanta ku haysay muddo 20 sano ku dhow socodsiinta howlaha adeegga caafimaad ee xaruntaasi hooyada iyo dhallaanka ee degmada Dila gudoomiyaha degmada Dila Ibrahim Cabdi Xaaji oo ka hadlay kulanka lagaga hadlayay saameynta ay ku yeelan karto adeegyada caafimaadka ee degmada Dila haddii Bisha Cas laga wareejiyo mashruuca xanaaneynta hooyada iyo dhallaanka ee degmada Dila ayaa gudoomiyuhu sheegay in hay'adda Bisha Cas ay tahay hay'ad wadani ah oo aan bulshada deegaanka degmada Dila uga maarmi karin adeegyada caafimaad ee ka fuliso degmadan waxa kale isugu nimidnay war aan maqalay oo ah in Bisha Cas ee degmada ka shaqeysa lagu bedelay hay'ad kale waxaan leeyahay hay'adda Bisha Cas annagu kama naasu dacwoonin waa hay'adda kaliya ee degmadani wax ka qabata MCH ka dilaad ay gacanta ku haysaa waa isha kaliya degmada ka nool waxaan leeyahay looma baahna arrintaas Bisha Cas waxyaabaha ay noo qabataa kuma koobna caafimaadku kaliya nadaafadda wax nagala qabataa biyaha wax nagala qabataa wacyigelinta wax nagala qabataa nabadgelyada wax nagala qabataa Bisha Cas waxyaabaha ay noo qabato wax soo koobi karna ma waxaan leeyahay oo u sheegayaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal inaan haba yaraatee waxa shacbiga Dilaad u aqbali kara aanay ahayn oo marnaba fikirka odayaashu ku hadlayaan waan la qabaa soo kale xildhibaan Axmed Barkadobsiye oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliland iyo duqeyda deegaanka ayaa iyaguna sheegay in wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland gaar ahaan isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal ay dib uga laabtaan go'aanka in xarunta caafimaadka ee degmada Dila lagu wareejiyo hay'ad cusub isla markaana waxay codsi u direen wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo cid kasta oo ay khusayso bay yiraahdeen arrinta adeegyada xanaanada caafimaadka ee degmada Dila taasi oo ay ka dalbadeen in loo daayo hay'adda Bisha Cas xildhibaankii halkan laga soo doortay qayla dhaan baan ugu soo dhacday qayla dhaantaasi oo ay dadka shacabka ee degan ay noo keeneen waxa weeye waad maqlayseen shacabku sida waxa ku hadlayeen anu waxaan leeyahay wasaaradda caafimaadka ha ahaato wasaaradda gobolka ha ahaato wasaaradda agaasimaha guud iyo wixii la halmaala waxa weeyaan arrintaasi arrin maanta dhacaysa ma waayo waxa weeyaan hay'addan Bisha Cas waxay ka soo shaqaynaysaa halkan in ka badan 20 sano may jirin maalintii halkaa ay timid Bisha Cas wax dhismaa ama wax ka jiray waxay 20 sanadood si kolba meel u soo gaadhaysay maanta waad aragtaan dhismaha iyo halka ay marayso waxa loo keenay imika gawaaridaas loo keenay waxay ka soo guraan meel wal oo gobolka inta agagaarka oo dhan dumarkii ku dhiigbaxayay ku dhiigbaxayay halkaas imika lagu daweeyaa oo laga umuliyaa waxaan haddaba leeyahay waa siyaasaduna way socotaa dadka ayaan la fogeynin waayo MCH kaasi waxa ku xidhan yahay siyaasadana uu ku xidhan yahay maanta haddii ay dadkaasi ay sii jeestaan wallahi cid soo qabanayn marka ma aha in dadka la fogeeyo oo la gujeeyo waayo waxa weeyaan waa hay'adda kale waa isha kaliya ee haddii ishii laga rido de qofku waxa weeyaan nin in laga riday isna isha kale uu ka riday oo waxa weeyaan halka uu ka sijeesanaya waxaan leeyahay politically way u xun tahay xitaa waxay dadku raaliga ka yihiin in laga qaado marka waxaan leeyahay war ka noqda arrinkaasi oo aanay noqonin wax la isku jiitay aanay noqonin ninka maanta dareynaya hay'addani waa hay'ad wadaniya 20 sano way joogtay meel kama tagayso dalkay u dhalatay laakiin maanta hay'adda kale ee maanta timaada ee amba sanad ama laba ka shaqeysa way iska bixi doontaa laakiin kama tagaysa ilaa weligeed hadday meeshu way maanta kor u bay uga sii qaadi meesha marka waxaan leeyahay dawladdu ha ka noqoto oo agaasimaha guud iyo wasiirkana waxaan leeyahay hore waad u soo martay meesha waanad aragtay waana soo shaqeysa waad aragtay in MCH ka kaliya ee gobolka ka hirgalay ee ka shaqeeya uu yahay kuwa kala aad aragtay kuwa wada xidhan marka waxaan leeyahay war MCH dadka
يا دش لقى طول ودي بلو علمي وكبحيا والسلام عليكم ورحمة الله. أنا أصلا عبد الرحمن حسين بله وعن الله وسارته بلا وحي أنا وضحني اللي جربي المسؤولية تدلك كاهي أي كوبا بين ساين بشعص يمسيك اختار بقى نور تكمني مسؤولية تدلك أنا وسارتي كسارتها حلكو إني اختار دلاو دستو وسيركو لو صوب مري سيدا في عن قروح ضبضن او شقينيسو ام سي اتش كدلا iyo bishaas ayuu arkay in isbitaalkii la dhisay uu ballan qaaday annagana waxbuu naga doonayay dhulkii waan bixinay contributionkii qurba joogtayaduna waa diyaar wasiirku horta hay yimaado dhagax dhigii isbitaalka hadhigo xagga bishaas iyo madaxda gobolka waxa weeye bishaas heerka ay gaarsiisay dila cid gaarsiin kartaa ma jirto cid aan ku bedelanaynaana ma jirto cid kaloon garanayno bishaas ahayna ma jirto waxa weeye waxa ka qayb qaadataa nabadaynta xataa gobolka gabiile bay ka soo gurtaa waxay ka soo gurtaa degmada boolama degmada baki degmada dila intaasoo dhan waxa weeye gaariga biikaabka boqol iyo dhowr iyo toban baabuur oo ambalaas ayuu wasiirku maalin dhaweyd la wareegay horta gaari ambalaas noo keenay oo dumarka biikaabkaan kaga dejin lagu biikaabkaa saaban abaal ku qabnay taasi waa shaqada wasaaradda madaxda sare ee dalkana waa salaamaya oo madaxweynuhu ka mid yahay iyo madaxbiisha caasanagu waxaan ku doorsanaynaa ma jirto mas'uuliyaddii wasaaraddu lahaydna waa inay keenaan ta kale ee naga dhiman ee dila ahaan intaasoo kun oo waaxood baa jira wasaaraddu leedahay ta malaariyada agaasimaha qufaca mid kuma lihi waa in saraakiilan ka helna halkan laga shirayo ayaan cidiba loo joogin ee nalagaga wareejinayo madaxda waxa weeye population intaa leegna waa xaq baan nuu leenahay wasaaradda xarunta inaan agaasimayaal ku yeelano taasina waxa weeye wasiirka iyo madaxweynaha u taalla والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بيش عاصي waxay noo qabatay horumarin baan ku gaadhnay dumarkii waxaanu nahay hooyooyinkii oo mulsaday annaka iyo ubadkuba waan isla dhifnay waxaanu ka helay horumarin baabuur aqallo gudbin wax kasta aanu ka helay marka qolo kale oo ku doorsanayna ma jirto oday baadiyaan ahay kullayba afar degmo iyo laba gobol oo magacoogu ay caam yihiin wajaale magaalo cad dila baki afartaa degmo dumarkii ku dhiigbaxaya waxaan ognahay ama ku muraaciyay inay maanta ku banaaneen yacno bishaas ee dila taas waa meel ta kale labada gobol laftooda way ka soo guraan dumarka iyo caruuraha iyo wixii dhib qababa sidaa awgeed dawladda iyo laanta iyo wasaaradda caafimaadka midnaba horta inay wax kordhiyaan un baanu anagu filayno oo sugayn laakiin inay wax naga ridaan aragtidayada maana filay waxaan leenahay sida odayaasha hore u yidhaaheen maxamed daahir oo kale cidda waxaan nala doonaysaa waxay noo dayn bishcas cidda waxaan naga ridaysaana waxay noo keen cidaan aan garanayn oo kale oo aanaan wax qabadkeega aragtee sidaa awgeed sida maxamed daahir u yidhi hatimaado bal waxa la noogu doonayo cidda la noo keenayo annagu ma ogin waxaan leenahay cidda wax qabad noola jeeda ha noo dayso hay'adda bishcas assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hore magacayga waxaa la yahay axmed buraale diiriye waxaan ku noolahay degmada dira populationka dila degan ayaan ka mid ahay waxaan aad iyo aad marka hore u salaamayaa cidda ay khusayso arrintaas marka hore marka xigta waxaan sheegayaa oo halkan aan doonayo inaan ka jeediyo hadal ah na soo gaadhay oo aan naloola iman uuna soo gaadhay hadalkaasoo ah MCH-ka dila waa laga baabi'inayaa bishaas waxaan annagu ku qabnaa MCH-ka dila iyo bishaas waxaan ku qabnaa waxyaabo aad iyo aad u wanaagsan annagu raalli kaga nahay
سان الدولة ضيّة يوم ضحى إذا رالو وقناهي أيام رالو وقناهي أمس ياجك وحي كشقة بيش عصر عرورتي يدي يدومر كي يجي عدلة كسر دمالية أما كوبي بحيي ما أنت أمس ياجك على لسانه قدام بيسي بركضي نوصل ميان بيحرب نوصل ميان نظافة بينوغا شقيين waxaanu ku amaano mooyaan wax bish cas xumaano naga yimi ma jirto hadalkan soo gaarina waxa weeye waa la bedelaya qolo kale la keenaya deemaba naqaan maxaa tan looga bedelaya yaa ka dacwooday qofka dacwadu ka timay yiri qoladaas waan soo dacwootay oo MCH ka dilaq bish cas ku shaqada wax u qaban weeyay muxuu noogu iman waay mid kale ninka yiri hal laga bedelo dilaq MCH ka dilaq intuu yimi aan u dacwoonay waayo ma jiro waxaanu ka codsanaynaa madaxda sharafta leh dalka haday tahay madaxweynaha haday tahay madaxweyne ku-xigeenka marwada madaxweynaha wasiirka caafimaadka arinta aanu halka kaga hadlayno hal la eego khalad baan laga gelayaa hadii laga bishcasna laga qaado degma ahaana niyad ma aqbalayno tii kale loo timaadana ma ogolin bishcas baanu doonaynaa dad baa ka shaqeeya aanu baranay oo shaqada yaqaana وحول على وحي أنا وجبه إنه وين كنتا دكتور جود بينه حساب سنة تيدرا دكتور جود مليين إياه نوع قابل سن وياي تي عين كان نوع هذا اللي تقول ميدا نانو قامبا وما قاعد بكرين بالليلين كانوا ما دونينه إياه ندونينه إياه وحنو كأصلنا قلنا ما تحت الجبل عافماتك إياه عن عرق إن إلى هذا بيش عسيد تروح بك ما قبضته خالد وين وي أنا أقول personal attack سمين مايو نينغوني مقعابي مايو لكن وحالينا هاي وربل وحا كواركتين كاليا نوش ياغا وحي عايد انت ايضا وسارده وقد بين ومالسا وقد بين إنا أنك نوتي بعضان قولنا ويديسان انت برقاتين مدحنا كجيدان مايا تاسي نوغا ديغنت يا نغا انت برقاتين مدحنا كلا جبسين halkaas maalin walba qof jaban la keena iyaga daweysay bish casba daweysa islaan ila inta ka sokoysay gabiilay ila inta ka sokaysa meesha la yiraahdo boorbe fuqi boorka ila inta soo baa laga soo qaada dadka oo halka la keenay laga umuliya gaarigiina waa u haynaa oo bish casba keentay oo halkaas laga soo qaada bal waxaan bish cas lagu eedeeyay aan ogaano anagu horta marka hore intaan la oran waba leeriyaaba horta noo sheega marka ama waridu ku yeelay waridu ku diidi laakiin saatay cayn kan tahay aftuub baan u qaadanayna aftuub hay'adana leeyahay waa la keenaya haday imana soo wax loo qabanayso waan soo dhaweynay laakiin se bish casla kuma bedeli karo salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh halkan maanta waxaan isugu nimid shirkan jiraayay halkan lagu qaabiyo ila naga timid wasaaradda caafimaadka ee gobolka taasi oo MCH kan leeyahay siyaalo kale ayaa loo dhigaya oo aan fahmayn haddii aan ka soo warrano taariikhda MCH kani halkan markii aan ku soo noqonay 1990kii waxa uu ka koobnaa laba qol labadii qol ee ka koobnaa ay jiingad lahayn waxa saartay hay'adda SCF oo saartay gabadh loo jiray Maryam Cabdullaahi Jeerman ayaa qayb lixaad ka qaadatay halkan uga mahadnaqayo oo aasaaskii meeshan samaysay maantana halka umaraya way naga arkaynaa hay'adda bisha cas waxa ay ka shaqaysaa caafimaadka oo qura maaha waxa ay nooga shaqaysaa biyaha waxa ay nooga shaqaysaa magaraysaa sanitationka musqulaha ay noo qodo biyo xidheennada at same time dhaamamka barkadaha intaasoo dhan waxa aan halkan u soo gudbinaynaa anigoo hadalkayga soo koobaya wasiirka wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Somaliland in haddii aanu shacbiga reer dilaadnahay in hay'adda bisha cas halkan laga kaxeeyo aanan aqbalayn haba yaraatee waxa kale oo aan ka codsanaynaa arrimaha qolada isuduwaha gobolka iyo groupka caafimaadku ay wadaan in halkiisa uu nagaga nageeyo bisha cas wax alla dhaliil oo aan ka sheeganayna ma jirto waa hay'adda qura ee ka shaqaysa degmada dila hay'ad kale oo ka shaqaysa ma jirto wax kale oo loo qabtay oo dib u dejinayna haba yaraatee ma jirto waxaan ku soo koobaya hadalkayga waxaan ka codsanaynaa mar labaad wasiirka wasaaradda caafimaadka oo isaga laftiisu intuu halka yimid lugihiisa ku arkay sidii ay u shaqaynaysay MCH ka dilaad waxaan jecel lahay wixii aad indhaaga ku aragtay ayaa la rabaa in la dumiyo shacbiga reer dilaad haddaan nahay diyaar uma ihin hawsha waxa aan jecel lahay wasiir in aad dib uga noqotaan adiga iyo isduwaha gobolka wasalaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida la noo sheegay oo aan toos la noogu sheegin wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal oo la nagu yiri maanta oo aan islahayn waqtigii ugu fiicnaa ayuu maraya caafimaadka degmada Dila
taana mahadnaqeega aanu hayno hay'adda bisha cas oo in badan ka soo shaqeynaysay MCH kan dilaad meel wanaagsan soo gaarsiisay aanan ku koobnayn waliba ka shaqeynta caafimaadka oo kaliya ee waxyaabo kale oo fara badan sida uu u sheegay ceelaababa ka soo qabatay haday tahay biyaha haday tahay beeraha haday tahay sanitationka haday tahay qayb talaalka aanu isleenahay waxyaabo badan bay idin qabatay maantana aanan ku soo koobi karay mahadnaqeeda يعني أنا في صومالي كسو كوبي كريم أنو لنا هاي إلهي هو قدره يعني ميزانك حسناتك هيدا بشعص أو واحد بدن هو يدلانك يا أمضى متقدم في النور واحد بدن سوق بتاعي سيد علابي بوكسو شيء واحد نقرأنا MCH كان أو سلكو أوضن أو من كم يدا دقيقة هالكم فردا أو قد دقيقة حاج مؤمن أو قد دقيقة أيدا يا حيوان كلا كسو أوضن ما أنت وكحدين يا يدير سطح متري أو عد ولي بإنديه ده يكون أركسه ولي بنا بلشدنا غيب كقاعدتي لكن مسكحة لقو كسبضي أي كانت هي ده بيش عسل وحقبتك أي نوقبتين أن هالكن ما أنت كسوكو بكري هدي شغالات هاي هدي جودة هاي هدي محن كورادا توابرت هاي هدي نولش أردن عافمات كوبين ياي تاي أنا مالين دويت أو أن فوقين وزير كعافمات كسور دوينه هالكن هرمركا MCH كدلات وما أنت قبل كم مدين ياي أو يعني نوجا ما حد نقول أو كتل مامي إنه ياي MCH كا Soomaaliya marka la soo qiimeeyo inuu ama kalabaad noqonayo ama ka koowaad waxaan filaynay maanta in wax kale oo badan oo horumar lagu soo kordhiyo laakiin ma aanan filayn in cidii waxa noo qabatayna wasaaradda caafimaadku ay maanta tiraado yani ma way ka baxaysaa meesha waxaan leenahay wareedilaad kamay cabanin hay'adda bisha cas reedilaad kamay caban kamana cabanayaan intay nool yihiin taariikhda waxay ku xusi doonaan in ay maxaa ku dhahay hay'adda bisha casi horumarka ay wadanka ka qabanayso khaasatan dilow qabanayso inay halka ka sii wado mooyaane wax dib u laabasho aanan marnaba ku soo qaaday anay dhacayna bisha cas ها soo sidaa maaha soo sidaa maaha hay'ad kale ma ogolin hay'ad kale ma ogolin bisha cas bisha cas si kastaba haatee hay'adda wadaniga ee bisha cas ayaa iyadoo ah midda keli ah ee ka shaqaysa deegaanka degmada Dila oo ah dhul beeraley iyo xoolo dhaqato taasoo ay hay'adda bisha cas wax ka qabato dhanka biyaha fayadhowrka caafimaadka ee deegaankaasi degmada Dila ee gobolka Awdal Hashim Sheekh Umar Good Somali TV